direct and indirect speech hadalka toosan iyo hadalka aan toosnayn ardayahay waxaa inay sheegayaa qaybtani ama mawduucan la soo gaaray ama jabtarka inuu yahay qaybta ugu muhiimsan khaasatan ardayda fasalka 12aad secondary schoolka form 4 arday oo maqaano waa qaybaha muhiimka imtixaanaadkana ma ka baxaan marka si fiican loo fahmo hala dhageysto halaga faa'iideysto direct speech maxay horta what is direct speech waa maxay hadalka toosan direct speech is a type waa nooc of sentence oo jumla ah direct speech hadalka toosan is a type of sentence waa nooc jumla ah in which kaasoo we quote aan ka soo xigano the exact words hadallada sugan spoken uu ku hadlay by someone qof when writing marka la qoraayo directiga ama hadalka toosan the speech marks comma maxaa la yidhahdaa also call it waxaa la yidhahdaa quotation marks or waxaa la yidhahdaa inverted commas hakadyada isweydaarsan ayaa la yidhahdaa are used ayaa la isticmaalaa direct speech marka la sameynayo waxaa la sameeyaa waa arki doontaan tusaalooyin badan arki doontaan insha allah markaan soo gaarno speech markska quotation marks inverted commas are same waa hakadyo isweydaarsan indirect speech hayo waa hadalka aan toosnayn what is indirect speech su-aasha marka taas waa inaan fahanno horta muxuu yahay hadalka dadban indirect speechka is a type waa nooc of sentence oo jumla ah in which kaasoo we report aan tabino ama la tabiyo ama aan ku tabino what someone said wax qof uu yiraahdo la soo tabiyo we do not quote ma soo xigano the words kelmadaha spoken lagu hadlay indirect speechka is also called waxaa la yidhahdaa ama waxaa loo yaqaanaa report speech indirect speechka hadalka oo dadban is also called sidoo kale waxaa loo yaqaanaa ama waxaa la yidhahdaa report speech waa hadal aan dadbanayn waa report speech indirect speechka runtii waa qaybaha dhaxalgalka ugu muhiimsan khaasatan ardayda fasalka 12aad ama dugsiyada sare waa qaybaha ugu muhiimsan marka loo fiiriyo dhinaca grammarka rules xeerarka for changing isbedelaan direct speech markuu yahay hadalka toosan inta oo lu bedelo report speechka direct speech ayada waxay noqonaysaa he ama she report speech markuu yahay wina oo direct speech ah they ayay noqonaysaa you oo singular ah waxay noqonay report speechka she he her him you oo plural ah waxay noqonay they them me oo direct waxay noqonaya him ama her us sidoo kale them ayay noqonay your oo singular waxay noqonaya his ama her your oo plural ana waa there is wuxuu noqonaa report speechkeeda was can could ayay noqonay will waxay noqonaysaa would marka laga dhigayo report speech will waxay noqonaysaa would today oo maanta waxay noqonaysaa marka laga dhigayo report speech that day tomorrow oo biri waxay noqonay next day ama waxaan dhihi kartaa following day ama the following day yesterday oo shalay ah direct waa indirectkeeda ama report speechkeeda waxay noqonaa previous day maalintii ka horeysay tonight caawa ah waxay noqonaysaa that night now oo hadda waxay noqonaysaa then kadib here halkan waa there ay noqonay report speechkeeda last waa previous this that this those was